ciidamadan oo ka tirsanaa guutada gacan libaax ee maamulka Soomaaliland waxaa deegaanka Harwanaag ee gobolka Sool ku soo dhaweeyay taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta Puntland General Siciid Soode abaanduulaha ciidamada daraawiishta ee Puntland General Siciid Gorayo Cawl gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne iyo saraakiil kale Dhamma Cabdullaahi Cabdi Cali Gacan oo ciidamadan hogaaminayay ayaa sheegay in markii waxyaabo badan ay arkeen inay go'aansadeen inay ku soo biiraan maamulkooda ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan difaaca Puntland dhamaha ayaa tirada guud ee ciidamada ku sheegay 110 askari ciidankan aad aragtaan waa ciidankii ka soo goostaysan idin sheegay jamhadda ismaamulka mugdiga ku jirta ee aslam markaanu aqoontoodii shiilay aragtidoodii shiilay mabaadi'doodii shiilay aanu aragnay waxa ay ku soconayaan inuu baadil cadaana yahay dalka ummadda dalkeeda iyo dalkoodaba inay si baadil ku qabsadaan kula joogaaniin ta aanu ka dhidhinay ee kaga soo baxnay number 1 taasawa ciidankan wuxuu ahaa guutada la yiraahdo gacan libaax wuxuu ka tirsanaa Tidsosa taliska guud ee Hargeysa fadhigiisu wuxuu ahaa jiida hore ee Nugaaleed Caroolay ilaa Holland inta u dhaxaysa indhaha hore ee ciidanka qolada Aslam dhigatay waxaan buuraha idilaa run markaan idin sheego xabad kuma ayaan markii hore baa naga keenay haddana hadii Ilaahay raali ka noqdo waad ogaan doontaan meesha la geeyo hadii dadka alla ka dhigo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa soo dhaweyn kadib go'aanka ciidamadan ku tilmaamay mid guul u ah Puntland marka hore waxaan idin leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada gurigiinii ku soo dhawaada maamulkiinii ku soo dhawaada ciidankiinii ku soo dhawaada ciidiinii ku soo dhawaada eheladiinii aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa intaan oo kamid ah ciidamadayadii oo naga maqnaa inay maanta annagu halka ka diyaar garoobayna inay noo yimaadaan waxay buuxiyeen furin banaanayd soo dhawaada mar labaad in leeyahay anu wada ragaan waan garanayaa oo gacan iyo dhaga yara iyo guuto isana iyaga u dhigma labada kaliya haday aadaan guuto isana u dhigmaanay hadii alla idmo taa fiican baa dhala doonta idinkuna soo dhawaada halganka ka qayb galaysaan liicina ka galaysaan waliba qorhoraad baa noqonaysaan hay'ad xogtooda waa haysaanba tii aanu hayna baan tiini ku daraynaa ilaahay baanu tala saarsanayna waana guuleysanaynaa ciidanka kale oo maqan oo soo socda waa u yeeraynaa taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada difaaca Puntland General Siciid Soode ayaa soo dhaweeyay ciidamadan waxaana uu sheegay inuu uga mahad celinayo garashadooda inay dalkooda iyo dadkooda dib ugu soo laabtaan kana difaacaan cadawga soo hujuumay waxaan idinku soo dhaweynaynaa haddaad tihiin ciidanka ku soo biiray ciidanka daraawiishta kana yimid Soomaalidiidka Aslam maadaama aad maanta ku soo biirteen ciidanka halganka ugu jira dalkooda iyo dadkooda oo aad ka timaadeen ciidan xaaladiisu ay mugdi ku jirto doonaya dad iyo dal uusan lahayn inuu xoog ku qabsado waa idinku hambalyeynayna garashada aad garateen inaad dadkiina wax la qabtaan dalkiina amnigiisa iyo nabadgelyadiisa aad kala shaqaysaan dadka ku hawlan oo aad ka mid noqotaan horumarkiisa iyo hadii labadka amnigiisa sugidiisa garashada aad garateen waa idinku hambalyeynayna waana idin soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa shacab iyo ciidanba Puntland TV Garowe